waxaan ku cadeynaynaa inaan beesha Ayuub aanay arrinkaas kaga iman waa isimada iyo waxgaradka beesha Ayuub oo cadeeyay mowqifkooda ku aadan arrinkan guracan uu wata muuqan guddiile Muuse Biixi iyo dagaalka magaalada Laascaanood ka socda barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaan kaloo barnaamijka ku soo qaadan doonaa tabin toos ah oo aan mar dhaweyd dhageystay runtii tabinta waa la yaabay waa telefishinkan qaranka laga leeyahay jabhadda SNM ama qarankan SNM laga leeyahay fadhigiisuna yahay magaalada Hargeysa SMTV oo wariyaha u jooga magaalada Hargeysa uu wareysanayo ama uu iskaba dhigayo ama wayba tahay iskaba dhigi maaye wuxuu iska dhigayaa inuu wareysanayo wariya uga soo warrama magaalada Laascaanood anagoo wada og wax wariyaha uga soo warrama halka jabhaddu in aysan jirin qodobadii ay isdhaafsadeen runtii oo iga qosliyay ayaa rabaa inaan idin la wadaago waxaan kaloo meesha ka marnay maalinkii 15aad oo aan cibaadeysanayno ilaahu naga aqbal aamiin maalinkii 15aad ayuu galay dagaalkii u dhaxeeyay jamaahiirta xaq dirirka ah ee SSC iyo jabhadda SNM waxaan idin soo gudbiyaa warar sugan isla markaana xaqiiq ah runtana ku salaysan si aad noola saaxiib channelka subscribe dhaho isla markaana gambaleelka u furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo daawada muuqaalada aanu bartan soo gelino waa walaalkiin Laacsoon oo idin leh sidii hore iyo calool adeeg bismillaahir rahmaanir rahiim وأيدي وضع السلام إيدي الكيمبا ملكوس الدنيا دافية ذا كتوكتان صاحي بيان سود وهذا واد وكسونيدين شلو هذا شيء بيش أجر حديث حتى يصير موقف كأي كتاجن تاي أرين كجرعان وموسى بيحي وطاء يتقال في المجال اللي أسعاره كالصعدة كل قرن ما إنه هذا الكودي يقضى بدي أي صوص عارين بس ما أنت يا هالله ساعدة كهر يا هالله ساعدة كهر هذا شيء بيش أيوب أيا أنا هالله سبحان الله باش أيوب أنا بركة هذا الشيء ساعدك ورا هذا الشيء وجاء الحق وزهق الباطل باش أيوب السمادة دي هي وحجرت كذي أيا هالله وحا عديان قضب الدور لكن سوى قادر من إن ير أيا رخص قادر إنه قضب الدور حكم إذا إن اسم باشا أيوب كالصعدة وصل لكم بدون اسم هذا بالبحنته انت عيدما جبهة SNM اي فديان دوليت كمقالة Laascaanood اما تاكا إلا oo dhul ah oo ay leeyihiin gobolada SSC ay ku sugan yihiin takale ay sheegan waxay tahay wax wada hadal ah in aysan suuroobeen inta ciidanka Muuse Biixi uu wato ay joogan dhulka SSC qayb kamid ah balaanu yara dhageysano waxaan ku cadeynaynaa inaan beesha Ayuub aanay arrinkaas kaga iman ergadana aanay ku jirin xubinna aanay ku lahayn afkeygana aan lagu hadli karin ergada baxdayna aanay ku jirin ayaan halka ka cadeynaa hukuumaddu xabad joojin bay ku baaqday Laascaanood ciidankii u dhex jooga laba isqabanaya ma aha waxaanu leenahay ciidanku xiriyooga ku noqdeen go'aamadii beelweynta garxaji soo saareen waan soo dhaweynaya annaguna haddaan beesha Ayuub nahay cid nagu matashaa haba yaraatee ma jirto nabadgelyaad ku baaqaysan guryahoodiina waa dhex fadhidaan isma qabanaysa taas waa la idinku gafay waa gaf baa idinku dhacay dhimashaa idinku dhacday waxa waan ka taxsiidan war dadka waxaan qabanayay nuux taano ka soo saar ciidanka beesha Ayuub iyo waxgaradkoodii mowqifkoodana runtii waad wada aragtaan موسى ميد بان كليهاي حبدنا هذا بالله أتكيسي إذا يهلو دبكن هذا أبو ريه بيرتن هذا أبو ريه بيرتن تعرت هذا أبو ريه داقسين كذا أذوق سوياه وحالي رجالو قيد والبداق لكن ما كانت حين تقدر لقوي هذا موسى هذا دراويش يقانا صحبته معظم بالله بين عانا كدن ninka daraawiishada hadii marxabad loo bilaabana waa waanta xabad buu ku soo celiyaa ee nabad naas la nuuga kama raadiyo waa xaqiiqo yimidaas nabad naas la nuuga kama raadiyo xabadana waa saad u bilowday Muuse
wax wada hadal ah oo dhacayana haba yaraatee waad ogaan doontaaye ma jirto saasay tahayna dagaalkan dhulbahanta uma wada dhammaa ilaa haddeer weli dhulbahanta ismiidaan arag weli hubabka qaar aan lagu adeegsan baa jira maalinkii 15aad ayuu galay dagaalkii u dhaxeeyay jamaahiirta xaqudirirka ah ee SSC iyo jabhadda dhashay shabaab ee SNM balse aan ku horeeyo tabin aan mar dhaweyd dhageysanayay saacado ka hor oo live ahayd oo laga leeyahay magaalada Hargeysa laguna magacaabo SMTV oo ku hadasha afka SNM ayaa waxay matalaysay inay wareysanayso wariye u jooga magaalada Laascaanood waana ku tura wax ka jira male waa kuro ku tayway waan wada ogsoonahay maanta wax wariye ah oo halka u jooga inuusan jirin ugu horreyn waxa uu weydiiyay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood wuxuu ku jawaabay hadhihin wuxuu yiri ka waran dagaalkii ay maanta wada galeen jabhadda wuxuu yiri dagaalkii ay maanta wada galeen jabhadda SSC iyo maamulka Somaliland markaasuu yiri jabhadda SSC ha oran ay waxa tiraahdaa qoliyaha maandooriyayaasha gada dalka u fiirso qoliyaha maandooriyayaasha gada waxaanu ka qabsanay buu yiri dhowr fariisimood ay lahaayeen sababtu waxa weydiiyay uu dagaalkan u socdo magaalada Laascaanood sababta dagaalkan wali uu uga socdo saakan oo uga qarxay iyo ujeedka ay u dagaalamayaan buu weydiiyay waxa ugu jawaabay waxaan la dagaalameynaa qoliyo muqaadaraad magaalada soo geliya xashiishka khamriga waxyaabaha noocaas oo kale soo geliya shalay waxay ahayd shabaab maanta waxay maraysaa muqaadaraad waxa ay gula qosolka bandeed markuu weydiinayay ciidamada Somaliland xagee joogaan markaasuu yiri ciidamada Somaliland iyaga ku wada haya magaalada Laascaanood gacanta Somaliland ayay ku wada jirtaa hadda xagee ku sugan yihiin buu yiri wuxuu yiri waxay ku sugan yihiin buurta gooja cadda ka dambaysa wariye kale Hargeysa jooga alle wuxuu yiri waa taadka maradeli taasi jooji waxyaabo noocaas ah war maadaad u baahantihiin maadaama aad rabtaan ee niyadiinuba soo galay in aad been sheegtaan waxaa la sheegaa been run u eg ayaa la sheegaa runtii ma soo koobi karo waxyaabo fara badan buu weydiiyey hadda wuxuu weydiiyey dadkan magaalada ka qaxay reer Laascaanood boqolkiiba 90 bay gaarayaan buu yiri sababtay u qaxeen maxay tahay maandooriyaashaasi ka qaxeen hadhow marka la sifeeyana waa loo wada yeerayaa war dadku maxay waan bimoodeen war yaa u sheekeynaysaa SMTV yaad u sheekeynaysaa aanu gudbo dagaalkii maanta dhacay shalay isagoo Muuse lahaa ergan soo diraya ayuu saakana gaadma sameeyay laakiin se maxaa ka raacday mar walba uu Muuse hadla ama uu yiraahdo ergan soo diraya ama uu yiraahdo waxaan ku dhawaaqayaa xabad bilaa shuruud ah aroortii gaadmay soo qaadaan saaka hiirtii waa bari xilli ay ku beegan tahay 4 iyo barkii subaxnimo waa xilliga salaada subax ee Soomaaliya ayay waxay soo qaadeen dagaal gaadma ah balse waxa ka dhacday kabtay ma aragtay inkastoo markii hore dhowr hoobiye iska soo horreysiyeen hoobiyeyaashaas oo runtii cid wax yeelayeen haba yaraatee ma jirto khasaare maanta soo gaarina haba yaraatee horta ma jirto laakiin iyaga xaggooda khasaaruhu waa u badan yahay waayo waxaad nimankan ku taqaanaan intay xabadda ridaan inay dib u cararaan xabadduna ay kaga wada dhacdo dhabarka iyo dabada meel kale oo ay kaga dhacaysa haba yaraatee ma jirto Muuse wixii niyaheeda yeelo adaa nin darwiisha xabad u bilaabay qarankii aad soo dhowdhoobaysay muddada 12 sanana maanta waxa qaawiyay waa daraawiish waxa kufsaday waa daraawiish waxa beesha caalamka tusay waa daraawiish Muuse saad u fakaraysay aad u fakaraysay waa adiga u ekaaday wan xal ka dhargay wadiga way kaaday adkeysigeeda Muuse yeelo daraawiishi xal xabad bay ku keentaa xabad baan ku keeninaa dhawaqa xabadda hada istiraado dhulbahanta wax buu yeelaa dumarkoodii ragoodu suufkan dhukayga ama isticmaalaan
dhawaqa xabadda dhulkayga iskaga saaraan midaa la soco war waxaa idin leeyahay waa hilaac sool oo idin leh sidaa iyo is aragti dambe oo xiisa leh farxad iigu wada noolaada